Zamzam hadda ayay qaangaadhay. Waxay u diyaar tahay inay qaado mas'uuliyado. Waxayna ogaatay inay diyaarsan tahay jir ahaan, maskax ahaan iyo qurux ahaanba in ay la midowdo ama lala midoobo. Halka dhanka kale Marwaana isaguna uu ku jiro raadinta, isballaarinta iyo dhul xoreysiga. Waxa uu heliya ama garab siiya isla walaalkii oo ay yihiin xulafo ama iskaashi. Waxay u dadaalayaan sidii u heli lahaayeen isla dhul, qalanjo iyo maamul iyaga gacantooda soo gala. Sida ay Zamzam rabtana waa si aanan dhici karayn. Waa in xulafadooda dagaal lagu soo qaado oo la jabiyo oo iyada lala wareego, ama iyadu inay nafteeda hurto oo ay duurka gasho sida ay ula midowdo kii la midoobi lahaa ama ay la midoobi lahayd. Halka Marwaanna sidoo kale laga rabo in uu dagaal qaado oo uu jabiyo ragga ku hareeraysan ama aararka ku hareeraysan isla Zamzam oo Zamzam uu la wareego, ama wareegga iyo socodka uu samaynayo in uu kula kulmo iyada oo ka soo baxday ama ka soo fogaatay isla groupka ku tiirsaneed ee ilaalinayay. Labadooduba siday rabaan waxay u muuqataa mid aanan dhici karin ama aad u adag. Waa mid nafuritaan ah oo u baahan ku dhicitaan. Waxa wada ama soo riixayana kaba sii daran oo ma aha mid loo adkaysan karayo. Isla sidaa darteed waxay halis gelinaysaa isla nafteeda oo wax kasta oo ay gacanta ku dhigto waxaa ka qaadanaya ka ugu liita isla duurka oo kama difaacan karayso. Waxayna u baahan tahay daryeel ka duwan ka ay ka helayso isla boqortooyada ay hadda hoos joogto ama ay maamulaan walaalaheed, aabaheed iyo wixii la halmaala. Waa daryeel ayna fahmayn cid kale kaliya oo fahmi karayo ka ay la midoobi doonto. Zamzam sidoo kale waxay ka soo fogaatay walaalaheed, hooyadeed iyo ciddii garabka u ahayd ee ay ku tiirsanayd, kuwa ay wax wada ugaarsanayeen ama ay wax wada dishoonayeen isaga dartii, ama si ay isaga ula kulmi lahayd ay nafteeda u soo halis gelinaysaa. Kana weyn kana fog sida ay dadku u malaynayaan iyo dareen kale oo gaara. Haddii ay isaga la kulantana waxay heli doontaa daryeelo badan oo aan la fahmaynin hadda ama aan u muuqanin, isla kuwa ku dhaliilaya inay isaga doon tagtay ama ay nafteeda u halis gelisay. Ma arki doonaa iyaga oo midoobay uu ka soo gaadhay kana difaacay isla dhurwaayadan? Ma arki doonaa iyaga oo soo biiriyay ubad yaryar oo ku abtirsada ama cagabaruuro reeba magacooda oo iyaga si toos uga abtirsada? La soco dhacdadan iyo halka ay ku dambayn doonto. Sidoo kale nagala soco dhanka YouTube-ka oo ah goobta aan sida rasmiga ugu soo gudbin doono fiidiyoosha documentary-ga ah iyo dhacdooyinka iyo qisooyinka ka dhaca isla duurkani, ama kuwaas oo muddadeedu ka dheer tahay daqiiqadihii kolka hore aan ku soo gudbinaynay isla dhanka iyo Facebook-ga. Waad ku mahadsantahay haddaad hore noogu soo biirtay. Haddaad hadda nagu soo biirina nagu soo biir oo ka mid noqo ololaha qaaliga ee garabka tooska aan ka helno ee nagu dhiirigeliya dhanka YouTube-ka. Sidoo kale mahadsanid.